guddigu de waa guddigii doorashada qaban lahaa waa guddigii farsamada maadaama guddigii hore la baabi'iyey waa in guddi la magacaabaa immediately waana shaqo galayaa haddii alla idmo marka guddigan aan magacaawday muxuu ka dhigayaa xilligan dee wuxuu ka dhigayaa kii hore ma jiro maadaama aan kii hore jirin waa jiraan sooma laakiin dhuusamareeb guddi baa ka shaqaynaya soo maahan madaxweyne kaa waan kasal garaynay guddi ila Soomaaliya laga leeyahay wey guddiga dhuusamareeb joogo ahay hore waxaa u jirtay in wasaaradda arrimaha gudaha hawshu waday raallina ka ahayd marka ma waxa fuli waay wax heshiis oo wada gashan oo hore u jiray wax kasta oo hore u jiray ayaga fuli waayay waa ka baxeen hayeelay waxa inaan shaqada wada wadno inaan wada ka wada tashano inaan sida wax loo qabanayo sameeyno oo isla ogaano kulli way ka bayreen kulligood waxay ka dhigaan monopoly ila Soomaaliya waan gartay heshiiska lala galay ahlu sunnah 20 xubnood ma wuxuu ka tarjumayay madaxa xukuumadda galmudug raalli ahaanshaha isla qabtaan mase ahlu sunnah ku koobna ahlu sunnah ku koobna laakiin annaga waxba kama qabno waxaasi waxooda waxaa nooga daran 69 ka haray jeebkay ku jiraan waa samaysan yihiin hadda la rabo in odayaasha laga sameeyo waxaan ka hortagaynaa waxaas ka mid ah yaa wato jeebka ku wato dawladda federaalka guddigan dhawaan la magacaabay xukuumaddu soo magacaawday galmudug dadka deegaanka ayay u badan yihiin soo maaha ama dadka deegaanka galmudug oo la rabay in ayagu xaliyaan marka guddiga maxaa ku dhalishay adeer guddigaas waxaan ku yiri kulligood shaqaale bil Soomaaliya ka shaqeeyo waaye boqolkiiba 80 ka mid ah haddii guddigan aan magacaawdana shaqo bilaabo guddigan uu hadda gabagabo maray hawshiisa maxay ku dambeyn doontaa galmudug adeer galmudug wax fiican bay ku dambeynaysaa haddii dawladda federaalka faraha kala baxdo haddii kalena waxaan ka baqaynaa dhacaya maxaa dhacaya waxaa dhacaya dee hadda dadkii oo dhan wada qaylinayo ummadii oo dhan beerihii oo dhan baa qaylinaya mid walbaa qaylinaysa odayaashii sayaxyaasha qabtaa baa kala dhigay kuwa hor lahaa la keensaday waxaasina ma shaqaynayaan laakiin madaxweyne xaaf galmudug mar walba go'aankeeda adiga waday warqad baad qortay dawladda guddigu waa marin halaabiyay doorashadii wadaadka guddigu way marin halaabisay waa lagu amar ku taagleeyay dadkii Soomaalida ahaa oo meesha dhisay oo beerihii kullu waa qaylinayaan ayaga rabaa inay wax ka badbaadino waa ma soo daayay